يا رسولا للمعارف والعلوم، يا أساسا للحضارة كي تدوم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بريهان السوشيال ميديا waxaa haysatay kelimad uu soo jeediyay sheekheena Sheekh Maxamed Shibli oo ku saabsaneed madaarista Quraanka. Sheekhu wuxuu sheegay noocyo kamid ah dugsiyada Quraanka iyo macallimiinta Quraanka oo ku fashilmay hawshii ay mujtamaca u hayeen. Haddaba maanta barnaamijka Murshid al-Muallim biidhnillah waxaan uga sheekayn doonaa shanta heer ee ay soo maraan maraakista dugsiyada iyo xarumaha tacliinta ee kala duwan. heerka koobaad waxaa la yiraahdaa marxalad alwujuud ama marxalatul hayaa. waa dugsi jiro oo furan oo shaqeynayo laakiin wax natiijo ah oo badan ma gaaro. ahdaaf u qoran oo inuu xaqiijiyo uu rabo oo uu gaaro ma jirto. xagga quraanka ha noqoto, xagga farbarka ha noqoto, xagga tarbiyada ha noqoto. maraakista maraya marxaladan marxalatul wujuud ama marxalatul hayaa waxyaabaha lagu garto waxaa kamid ah dadka hayo dad dhisan ma aha mustawa ahaan, kumana dadaalaan inay isdhisaan. ma xaadiraan doorooyinka kor loogu qaaday macallimiinta, ma aadaan meelaha tasxiixa iyo qiraa'aadka dadka looga saxayo. inta badan waxay jecel yihiin inay eeda saaraan dadka kale, inay eeda saaraan waalidiinta, inay eeda saaraan caruurta iyo magaalada la joogo. waxaa in badan ka maqlaysaa magaaladan bay-a lagu barto tacliin quraan kuma fiicno. caruurtan caruur tacliin diyaar waa ma ahan. waalidiintu iskuulkay jecel yihiin oo madrasada ma jeclo. dadka gacanta ku hayo xarumaha noocan oo kale ah waxaa kayaabaha lagu yaqaan waxaa kamid ah waxay aad oo la dagaalamaan oo oga masayraan maraakista naajixa ah ee eriyadooda ku yaalo. cadaawad badan ayayna u qaadaan. dadka gacanta ku hayo maraakista noocan oo kale ah sidoo kale waxaa lagu yaqaanaa in ayna diyaar u ahayn in la eego natiijooyinkooda, in la dabagalo iyo in su'aalo laga weydiiyo waxay soo saareen intaba. maraakista noocan ah oo nasiib darro aad iyo aad u fara badan ardada dhigato waxaa dhacdo sanado dhan inay dhiganayaan wax natiijo ahna aan laga gaarin. waalidkiina laga yaabo inay halkaa oga natiijabaan quraankii inay caruurtooda baraan. hadda ka hor ayaa waxaan la kulmay nin dhakhtar ah wuxuu iga sheekeeyey in caruurtii uu ka saaray dugsiyadii oo uu geeyey iskuul dad gaala ah ay leeyihiin oo ah xanaanada caruurta ama rawdada caruurta. markii aan la fariistay wax ka weydiiyey war ciyaalka maxaa dugsiyada uga saartay, wuxuu ii sheegay in dugsiyadii uu ka niyad jabay intaasoo dugsina uu caruurta geeyey uuna dib ka ogaaday caruurtiisa inaynan farta xitaa aqoonin, sanado badanna lacag uu ku bixinayay, iskuulkiina uu uga baajiyey. wuxuu yiri waxaan ogaaday ciyaalkayga inayna aakhirana hayn adduunna hayn, iskuulkiina waan ka reebay, quraanna ma baranayaan. marka dad ay dhab ka tahay tacliinta ma ahan. halka iskuulka markaan geeyo dadkan gacanta ku hayo ay meel fiican ka soo saarayaan cunuga ahdaafta ay leeyihiin ay gaarayaan. sidoo kale waxaan xusuustaa nin aabayaasha kamid ah inuu iga codsaday inaan imtixaan ka qaado cunug ilmihiisa kamid ah. ilmahaasi wuxuu marayay suuratu raxmaan. waxaan su'aalo ka weydiiyey bal inuu xifdisan yahay iyo tajwiidka inuu wax ka yaqaano iyo siduu ugu dhawaaqayo quraanka iyo nutqigiisa bal xaalkiisa suu yahay. nasiib darro cunugii inuu tajwiid ku akhriyo iyo inuu xifdisan yahay iska dhaafe inta uu soo dhaafay oo dhan xitaa suuradihii ugu dhawaa sida suuratul hadiid iyo alwaaqica oo markaa uu soo maray inuu kiciyo ayaa dhib ku noqotay oo kitaabka uu ka kiciyo. marxaladaas madaarista ku jirta aad iyo aad bay u far badan yihiin. meel walba oo tagtid aad iyo aad baad uga helaysaa. marxaladaas markii aad kor u dhaafno marxalada ku xigto oo labaad waxaa la yiraahdaa marxalatu najaax. marxalatu najaax waxay gaarayaan madaarista ku jirto marxalatu najaax ahdaafta ay lahaayeen qaar kamid ah mustawa ahaan way ka sareeyaan kuwa ka horeeyay laakiin wali mayna gaarin meeshii la rabay. dadka gacanta ku hayo mustawahoodu waa fiican yahay laakiin wali dad aad u diyaarsan ma ahan. calaamadaha lagu yaqaan waxa kamid ah waa dad jecel inay is hormariyaan, doorooyinkay xaadiraan, cilmi kororsi bay sameeyaan, waxay baaraan si ay u hormari lahaayeen. waa dad qaabiliyad u leh ama u diyaarsan in ay is hormariyaan. marxalatu najaax madaarista maraysa sidoo kale waxa lagu yaqaanaa natiijooyinka ay gaaraan iyo caruurta si wax u baraan
ilaa heer way iska roon yihiin wayna ka fiican yihiin kuwii horeete meeshii la rabay inkastoo ayna gaarin. marxalada saddexaad waxaa la yidhahdaa marxalatu tamayus. waa madaaris ka soocan dhammaan madaarista eriyada ku yaallo. tamayus waxaa la yidhaahdaa inuu ka soocan yahay qofka kani dadka kale ee la tartamayo. marxalatu tamayus madaarista marayso waxaa lagu yaqaanaa ahdaaf ayay leeyihiin xagga farbarka, waqti lagu dhammeeyo iyo ahdaaf iyo xilli iyo jadwal ayaa u degsan ay ku shaqeeyaan oo bil walba iyo isbuuc walba cunuga wuxuu baranaya la ogyahay. marxalatu tamayus sidoo kaleete waxaa lagu yaqaanaa waxay jecel yihiin inay raadiyaan qaabkay u horumarin lahayn madrasadooda. marar badan waxaa dhacdo inay u yeertaan dad ayaga ka baxsan si ay u imtixaamaan ardaydooda oo su'aalo u weydiiyaan. waxay ogol yihiin shaqadii ay qabteen in lagu imtixaamo iyo in lagu dabagalo iyo in lala eego. inta badan waxay isku dayaan inay marti qaadaan dad badan, inay raadiyaan maraakista iyo xarumaha waaweyn ee aadka u horumaray ayaga kasii fiican si ay u gaaraan. sidoo kale waxyaabaha lagu yaqaan waxaa ka mid ah in ay kaalimo fiican ka galaan tartanada localka ah ama wadanka gudihiisa ah ee la qabto. waxaa lagu tilmaami karaa madaarista marayso marxalatu tamayus in ay soo galayaan 20ka madarase magaalada ama gobolka ama wadanka ugu horeyso haddii la yiraahdo madaaris. sidoo kale waxaa lagu yaqaanaa in dad badan markay madarasa furanayaan ama xarun ama markas ay furayaan inay iyaga u imaadaan ay khibradahooda wax ka faa'iideystaan. waxay leeyihiin khibrado, waxay leeyihiin hindisooyin inkastoo ayna gaarin hindisooyin waaweyn oo lagu daydo, laakiin hindisooyin fiican bay leeyihiin. horumar iyo iskobcin iyo is-horumarin ayay aad iyo aad ugu mashquulsan yihiin. marxalada afraad waxaa la yiraahdaa marxalatu riyaada ama marxalada horyaalnimada. horyaal ayay noqonayaan gobolka ay ku nool yihiin iyo dalka ay ku nool yihiin iyo inta regionkooda ama gobolkooda ku nool ayay hordhac ama horyaal u noqdaan. maraakista ku jirto marxalatu riyaada waxyaabaha lagu yaqaan waxaa ka mid ah inay leeyihiin hal abuur ay ku soo kordhiyeen waxbarashada. ha noqdo qaabka farta loo barto, ha noqdo qaabka caruurta loo maamulo, ha noqdo qaabka nashaadaadka iyo caruurta loo dhiirigeliyo, ha noqoto qaabka waalidka loola xiriiro ama loo ribood gareeyo, ha noqoto qaabka caruurta loo tarbiyadeeyo iyo wax la midka ah. marxalatu riyaada sidoo kale maraakista marayso waxaa lagu yaqaanaa in ay guulo ka soo hoyiyaan tartanada waaweyn ee ka dhaco wadankooda iyo inta ku heeran. dadka degan wadankooda iyo wadamada u dhadhow ama ay isku afka yihiin iyo isku haybta ayaa maqla magacooda, laakiin weli mayna gaarin inay noqdaan heer caalami ah oo ummadda islaamka iyo meel kasta oo la kala joogo dadka ay maqlaan tajribadooda. dadka gacanta ku hayo marxalatu riyaada madaarista marayso waxay caan ku yihiin in ay yihiin dad wacyi leh oo mustawahoodu uu dhisan yahay. sidoo kale macallimiinta iyo dadka shaqaalaha ee la qaadanayo qof walba iskama geli karo. waxay u baahan tahay qofku inuu gaaray marxalad sare oo ah xagga wacyiga iyo xagga tababarka iyo xagga cilmiga iyo xagga quraanka intaba. dad macallimiin badan intay isku dayaan ayay ku soo hongoobaan inay shaqo ka helaan. kuwa badanna marka horeba iskuma aadaan maadaama ay is og yihiin in meeshan macallimiinta laga rabo ay aad iyo aad shuruudooda u adag tahay. marxalada ugu dambaysa oo marxalada shanaad ah waxaa la yiraahdaa marxalad alqiyaada ama marxalada hogaamiyanimada. madaarista gashay marxaladan waxay noqdaan tajribadoodu tajribad caalami ah oo adduunka oo dhan laga barto, qaaradaha kala duwan laga barto, dalalka kala duwan laga barto. markii qof adduunka meel uu doonaba ka joogo uu damco inuu sameeyo markas ama xarun quraanka lagu barto, wuxuu raadiyaa xaruntan tajribadeeda inuu ka faa'iideysto. waxaad maqlaysaa marar badan haddii aad rabtid markas lagu barto mutuunta iyo culumta sharciga inaad samaysid, waxaa jiro markas aad iyo aad u fiican oo dalka Mauritania ku yaalo oo magaciisa sidaa la yiraahdo. marka inaad fikrada ka soo qaadatid isku day. marka marxalatul qiyaada madrasadu markay gaarto waxay ku soo kordhinaysaa macrifada iyo dadka islaamka ah iyo dunida oo dhan ayaa waxay ku soo kordhinaysaa hal abuur cusub. ayada ayaa la bartaa, ayada ayaa la jilaa oo lagu daydaa. haddaba walaalayaal qof walbo naga mid ah bal dib inuu isku muraajaceeyo shanta heeran soo sheegnay dugsigaagu halkee buu maraya, sida xaalkiisa uu yahayse ma laga hormarin karayaa,
maraaxisha aan soo sheegnay haddaan hal mar ku celino waa marxalatul xayaa oo ah inuu markaas ku jiro oo magac ahaan u jiro laakiin wax horumar ah oo weyn uuna samaynin marxaladaas oo madaarista ay u badan yihiin waxaa kusoo xigta marxalatu najaax oo madaaris ayagana aan tiro yarayn oo aad iyo aad u fara badan ay soo hoosgeli karaan natiijooyin aana maaragtay aad u sii weyneyn laakiin aanan aad u liidanin sida tii koobaad oo kaleete ayay gaaraan inta badan marxalada waxaa ku xigta marxalatu tamayus oo ah inay soocmaan oo dadka madaarista ugu sarreysa dalka ay galaan marxalatu riyaada waxaa laga bartaa dalka oo dhan iyo dalalka ku heeran tajribadooda waana laga faa'iideystaa marxalatul qiyaadana caalamka oo dhan ayay wax ku kordhiyaan اسبوع soo socda haduu ilaahay idmo waxaan uga warrami doonaa barnaamijka murshid al-muallim heerarka ugu sareeyo ee saddexda ah ee kala ah at-tamayus iyo an-najah iyo al-qiyada maraakista gaarayso iyo dugsiyada gaarayso shuruuda laga rabo in laga helo intaas ayaan kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkeena murshid al-muallim aad iyo aad baad u mahadsan dhageysigeena جزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا رسولا للمعارف والعلوم يا أساسا للحضارة